maanta waxaan ka hadlayaa amba videogan waxaan rabaa inaan uga hadlo haddii qofka macaamilka lacag oo bixiyo in yar ay ku harto intaasna lagu heshiiyo in laga tuuro amba discount laga dhigo qaabkii loo sameyn lahay. marka hore waxaan rabaa macaamiisha lacagaan ku leenahay in aan aragno. waxaan imaanayaa reports kadibna customer receivable ayaan imaanayaa kadibna customer balance summary-ga ayaan gujinayaa. saddex macaamiil ayaa lacag ku leenahay, lacagta lagu leeyahay waxay gaaraysaa 235 waana inta ka muuqanayso account receivable-ka iyo balance sheet-keena. Hayaan Hotel ayaan soo qaadanayaa. Hayaan Hotel waxaa lagu leeyahay $20. qolada markaa way imaadeen lacagtii waxay bixiyeen $18. $2 ayaa ku hartay. $2 waxay codsadeen in laga tuuro oo discount ahaan looga reebo. marka saas oo kale haddii ay dhacdo qaabkii loo xalin lahay ayaan rabnaa markaa in aan barano. waxaa jira discount-ka sameyntiisa qaabo badan ayaa jiro. intaan ka warhayo Soomaalida discount oo nidaamka tutanetariga tooska ma isticmaalaan. discount-ka isticmaalaan waxay tahay qofka diina la siinaa muddo iska qabaa sanad 2 sano kadib waxaa laga yaabaa maalin inuu iska soo dhaco oo dhaho war meeqa lagu leeyahay intaas lagu leeyahay war intaana bixina intaana iga reeba. marka isla daaqada lacag qabashada ayaan waxaan sameynaynaa inaan lacagtaas ugu reebno intii aan wadooyin kale aan isticmaal lahayn. hal mar ayaan sameynaynaa haddii la yiraahdo. marka qoladan $18 ayaan ka qabanaynaa, $2 waa ka tuuraynaa. daaqadan oo furan ayaan waxaan u gudbayaa wax loo yaqaan customers menu kadibna waxaan imaanayaa receive payments oo ah meesha macaamiisha lacagaha looga qabto. received from cidda lacagta laga helayo. magacyada inta way tixan yihiin haddii saan aad kusoo qaban kartid okay waaye, laakiin aniga saan ka warhayo macaamiisha tiradooda aad u fara badan yihiin marka inaadan arkin ay u badan tahay waxaan bilaabaynaa magaca inaan qorno Hayaan Hotel. payment amount lacagta ay bixinayaan $18 ayay noqonaysaa. date-ka aba payment date-ka tusaale ahaan 26 bisha waaye. lacagta qaabka ay u bixinayaan cash waaye. boonada lacag qabashada number 2 ayuu noqonayaa. akoonka lacagta aan ku shubanayna markii macaamilka uuna siinayo oo aan ka qabsano waxay iska noqon doontaa cash on hand-keena oo cadaan inaan uga qaadna ayaan ka dhigaynaa. qoladan waxaa lagu leeyahay $20 waxay iska bixiyeen $18. waxaa ku hartay amba underpayment amba weli aan la bixinin $2. haddii aan marka san safe and close aan ku dhaho $2 weli way ku taagnaanaysaa waxaa laga rabaa inay iska bixiyaan, laakiin waxaa lagu heshiiyey markii lacagtan $20 oo lagu leeyahay ee 18 ka mid ay bixinayeen oo ah midaan boonada lacag qabashada aan uga qabanayno $2 in laga tuuro. marka boonada lacag qabashada qaybta hoose ayaa qolooyinkii cashier-ka ama lacagta qabanayay waxay kugu soo muujiyeen $2 in discount laga dhigayo. marka tii ayaan raacinaa. amarkan kale oo ah write off the extra amount titir amba baabi'i lacagta dheerida oo ah lacagtan hartay oo $2 ayaan rabnaa inaan baabi'ino. marka lacagaha la baabi'inayo waxay noqon karaan $2, $10, $15, $100, $200 hadba waxay ku xirantahay shirkadda policy-geeda iyo qofkaas ay wax ugu dhaafayso. marka waxaan rabnaa in aan baabi'ino. marka waan baabi'inaynaa. memoga faahfaahin yar haddaa u baahan tahay ayaa gelinaysaa. kabacdina waxaan gujinayaa save and close. intoosan close garaynin oosan dhacdadan save garaynin $2 aa baabi'inaysa oo ah write off amount-ga oo $2 haddaan rabnay inaan baabi'ino. akoonka aan ku baabi'inayna ayaan rabaa inaan soo gelino. war waxaan soo qabanaynaa sales discount-keena ayaan soo geli doonaa haddii la yiraahdo. akoonkaas ayaan leenahay ku shub lacagta ee ku baabi'i. marka $2 sales discount-ka ayaa lagu shubayaa. akoon kale expense haddii aad samaystid oo discount expense waa iska samayn kartaa asagana waa lagu baabi'i karaa wax loo male. العموما wuxuu u baahan yahay meeshaan akoonka $2 lagu tuurayo oo lagu baabi'inayo inaa u sheegtid. ani sales discount-kaas ayaa isticmaali doonaa. okay ayaan taabanaya dhacdo sidaas ayuu ku save garaynaya. wuxuu ku soo laabtay report-kii ahay customer balance summary. Hayaan Hotel meesha ayuu ka baxay. haddii aan u baahnaa marka Hayaan Hotel inaan aragno inaan imaanaa customize kadibna filter kabacdina meeshaas waxaan ka raadinaynaa name amba inta guji amba enter taabo waa inaan name tagta kadibna waxaan soo qabanayaa Hayaan Hotel kabacdina okay ayaan taabanaya. Hayaan Hotel waa 0 waaye. 2 jeer haddii aan gujino waxaa dareemaysaa waa kana calooshooda ayaan ku jirnaa. Hayaan Hotel magacii waa kansa $20 ayaa waxay tahay in qaansheegad ahaan loogu dalaacay. 18 dambeeda way iska bixiyeen. discount ayaa loo sameeyay oo $2 hadda balance-gooda amba haraagooda waa 0 oo wax lagu leeyahay habeeraatay ma jirto. xagga report kala duwan haddii aan fiirino waxaan imaanaynaa profit and loss-ka kadibna waxaan arkaynaa in discount-kii uu isbedelay. xoogaa yar waxaan u malaysaa meeshaan inaysan habaysnayn. meeshii habaysnaay oo report-keena ayaan ka raadinaynaa. waxaan imaanaynaa memorize kadibna waxaan gujinayaa accountant kadibna PAFO P&L waxaan
wuxuu noqonayaa reportkii habaysnaa aniga taariikhda all ayaan ka dhigtay laakiin income statementiga mar walba all nooma baahna waxaa loo baahan yahay bishaan markaas la taagan yahay ayaa loo baahan yahay marka waa inaad iska hubisaa bisha this month means bishaas aad taagan tahay ayaa soo saaraysa oo income statementiga bilbil ayaa loo soo saaraa amba waxaa ka maamuli kartaa meeshaan oo taariikhda meeshaan ayaa ku qoraysaa taariikhda aad rabtid inaad ka bilaawdid amba bisha ka bilaawdid iyo bisha aad ku dhammaynaysid marka bil alaaliya bisha aad u baahan tahay meeshaan ayaa ku qoraysaa taariikhdeeda kadibna refresh ayaa taabanaysaa bishaas income statementigeeda wixii dakhli kusoo galay wixii qarashaad gashay wixii la faa'iidan wixii la khasaare ayuu hore kasoo tuurayaa marka sales discountka $2 ayaa soo galaya horey 5 ayaa ugu jirtay laakiin hadda $2 oo discount oo daaqadan lacag qabashada macaamiisha ayuu kasoo galay discount ayuu noqonayaa skip ayaan taabanayaa si aan uga baxo waxaan imaanayaa balance sheetkeyga balance sheetka isbedelku wuxuu ka imaanayaa xagga cash on hand laba jeer haddii aan gujiyo $18 ayaa cashkeena kusoo dhacay wuxuuna ka imaadaa hotelkan loo yaqaana Hayaan Hotel sidaas si lamid ah waxaa ka baxaya korsibalka $20 $20 wuu ka wada go'ayaa $18 oo cash ahaan aan ku qabanay iyo $2 oo discount ahaan aan ugu reebnay hadda macaamiisha waxa aan ku leenahay $215 waxaana ka arkaysaa liiska macaamiisha oo waxaan ku leenahay $215 haddii aan imaano oo aan fiirino customer balance summary markii la isku wada geeyo $215 190 oo aan ku leenahay Muqdisho iyo $20 oo aan ku leenahay Shakir Factory